waxay soo qortay 3 su'aalood waxay leedahay Sheekh Maxamuud Shible waxaan doonayaa inaan weydiiyo 3 su'aal su'aasha ugu horeysa waxay leedahay Sheekh gabadha xaaska ah haddii ay ninkeeda uu dhaho waxaan aad isku qurxinayso jooji sida in suniyaha dhisato waajib miyay ku tahay inay iska dhaafto iyadoo rabta arrinkaas su'aasha labaad waxay leedahay sheekh qof aanan weyso qabin quraanka ma ka dhex akhrin karaa abka telefoon ku jira su'aasha saddexaad waxay leedahay gabadhow sheekh mar walba waxaa dhacda salaada subax inay iga tagto iyadoo aadinka aan maqlayo aanan u kici karin hurdo saa'id ah oo ay hayso darteed haddaan dib ka qaleeyo dambi miyay igu tahay saddexdaas su'aal gabadhaas iska leh waxaan raacinaynaa marka gabadhan kale oo dhahaysa sheekh tarbiyada carruurta waxay ka dhaxaysaa labada waalid haddaba hadduu aabbihii isku koobo biil raadin maxaa laga yeelayaa tan waa su'aashii afraad su'aasha saddexaad sheekh waxay leedahay haddaan turaaxad xiranahay turaaxaduna ay weyn tahay saakadana igu dheganayn ma asturnahay shantaas su'aalood baan sheekh ku wareejinaa insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله سؤاشا قبضا نينكادي اسقرحنتا اسكدا ويري طبعا قبضو إنه wax quruxsan xidhato iyana isqurxiso wax sharciga Ilaahay oo ogolaaday weeye ninkuna xaq uma laha qadarka xalaasha inuu daa yiraahdo xaq uma laha sadarteed diin ahaan waajib kuma aha inay iska dayso laakiin wixii marka horeba aan bannaanayn rabbi baa hore ugu diidayo ninka hortii bayba mamnuuc ka ahayd diin ahaan markaan leeyahay wax kaloo waxaa jira ah qoys ahaan waxay u baahan tahay in la qiimeeyo hadday diidda maxaa ka dhalanaya laga yaabaa qoyska iyo gurigu inuu burburo oo xaaladee iyadaa qiimayn kartee haddii uu jiro qadar ay samayn karto mid kalena xadna hadday dayso qoysku uu badbaadi karo qoysku inuusan burburin waa wax muhiima oo reerka iyo gurigaas la ilaaliyo waana laga yaabaa waxyaabaha qaarkood marxalad isku dhacaya kacdoona inuu jiro dabiicina ma aha nin reer leh xaaskiisa ha isqurxinni inuu yidhaahdo wax dabiiciya ma aha waxay u badan tahay wax kaloo ku dhex jiro oo la ysku qoonsaday baa jira wax kaloo la isqaniinsan yaho la isqoonsanayaa jira hadday wakhtiyada qaarkood reerku ku badbaadayo inay intay warkaa yeeshay kadibna xaaladdu markay degto hawsheeda iska wadato ama qadar iyo noocyo qoyska dumin kara ay jiraan oo ay ka dayso yaan meesha laga saarin qoyska badbaadadiisu waa wax muhiim ah jiritaanka reerkana waxyaabaha qaarkood buu ka muhiimsan yahay xaalado kacdoon ahna wixii lagu dejin karaa lagu dejiyaa laakiin kollaba anugu su-aashaas ima muuqato xaalad dabiici aho in wax jiro wixii cilladee jirtana la xalliyo baan ku talin lahaa laakiin wixii rabbi sharcigu u baneeyey isagoo kama xaaraantinimayn karo isqurxinta iyo waxeeduna waxay qur-aankaba ku sheegay dumarku dabiico ilaahay ku abuuray inay tahay markuu yidhaha waman yunashau fi lxilyati isqurxin baaba ilaahay ku beerayoo ku abuuray su-aasha labaad
أنا ويسقى من قرآن كالتلفون مكا أقرين كراها تلفونكم مصحف معها وحولي حكم ككتب تفسير كيو كتب كلا علمي قاه هذا قرآن كان كو قرينيين تلفونك واحد بدن با كجرا مقعيا كجرا تلفونها كجرا صورها كجرا ماساجيا كجرا صدرت القرآن خالص أو مصحف كوا قرآن خالص وكريجي كتبتنا علمي كلية تفاسير تنا قرآن كيبا كويا الله تفسير با كويا الله هذا الذي علماء ذا كويا الله صدرت القف كان ويسقى من تفسير كقرآن وكآخره كرا عند أهل العلم موبايل كنا حول ميديا هي ما دوين كي أي قرآن يوحك لبكوة ذي تشرين مركب الله أقرن كرا مصحف كقرآن كا لكن وحكوا في عين هي لما مدينة سمايسو أما برنامج كقرآن كأتك أقرأ سنة يسوع إسكي وصعنا ينويه بيج كي يسوي إسكي يسرقيه أما هذا قعنت كتابانه أما قال إن قاضى هذه هذا حكوا جديده وهي مصحفكم مركب وفرية هي بيج كاسي تابع شديسو حكم كي مصحف كتابع شديسين نقنا يسان إذا هو يسقى بيننا وحاول أكسن قرآن إن هذا تابانين مكسي هذا آخر إذا أنا تابان أما سود جسوا برنامجيا مصاحف تقار وحاجر إياه والصعود يرصعون إياه سبير كصعود كان الله يرين كرو الله نبضين كرو يسوي بيج كيسرقيه وأنا هذا تابا طبعا نوبة هنين أما قال إن إياه وحل لقول رجع بيج كا وتكون ريح ذا قاضو سواش سدحات وحولها هي كبر وحيلها ذا هي ورد عليس با صلاة الصبح العافية كدب دب قضاء هذا كورن ولا بقى يبود قضاها مرة والبوالا قاربا هذا بصلاة كاتكتو أما هردها كاتكتو أما حلمانا كاتكتو أما هذه هو حسوسنا كاتكتو أما كتجتان كذا كدن باب أما هدن بابين مرة البصلاة قضاء هذه ولا قاربا لكن صلاة الصايغة تكتم الدنبابة إياه هدي هرددي كعي كرتو كل ما شيطان كو عسلين والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنه نعيضا كاقن تيو وكليه ولي وإيه إسكير تشيفو وحوغي كو يرعشو وحوغي يسيرنب شيطان كو دحيا هذه كان إنا دستاكتو كعدو تكتينا دداشا لغاربا hadduu qofku waxa awoodiisa ka baxsan yahay dambi ma laha haddii laakiin waxa caadiga ee hurdada caadiga ee dadka uu la mid yahay ay tahay hadduuba tooso adaanka maqlo ama cidi toosiso waa waajib inuu tukado hurdo inuu sii wato waa dembi hadduusan adaanna maqal ama asal ahaanba uusan kici karin ilaa waqti la gaadho ama ay dhici karto mararka qaarkood qof dawo iyo isticmaalay inuu yahay oo ka tanbadatay wixii awoodiisa ka baxsan dambi kuma laha nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam gabadh baa ninkeedii soo dacweysay waxyaabay ku soo dacweysay waxaa ka mid ahaa salaada subax uma kaco oo marka uu seexdo haddii si kasta aan u hadlo oon si kasta u dharbaaxo oon si kasta u jiidjiido ma kacayo halkii su-aashaa marka la soo gaaray nabigu weydiiyey wuxuu ihi waa runteed laakiin hiddaan u leenahay reer hebel haddaan nahay habeen haddaan seexanno ilaa qorraxdu jirka iyaga kululaysa ma kacno wax kasta hadduu dhaco halkaa hadduu reerku ka soo gubanayo anigaa sidaa ah aabbahay baa sidaa ahaa awowgay baa sidaa ahaa nabigu intuu ku qoslay wuxuu ihi haddaba markaa soo toosto tuko markaa soo kacdoon tuko qofkaasi wuxuu sheegtay dee haddaan seexdo waxaan hiddo u leeyahay maba kici karaba qofkay hurdo dhaafisay la tagtayna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi laysa fi nnawmi tafriitun hurdadu salaad dayacaad ma aha markaa soo toostaa tukanaysa nabigana way dhacday hurdo inay dhaafisay calayhi salaam isagii saxaabadoo safara qoraxdoo soo baxday in cumar ku toosay kulaylkeedii
kadibna nabigu uu yidhi intii la weysaystay meeshii laga yar dhaqaaqay salaadoodiis waxay tukadeen qofkaa salaaddii uu tukanayaa haddii uu tukan karayoo dee hurdajiidka iyo culayska aan naqaana wakhtiga iyo shaydaan ka batayna dembi baa u dheeroo istikfaar iyo tawba iyonuusa hadda kadib ku noqonin buu u baahan yahay hadday wax awooddiisa ka baxsan tahayna dembi kuma laha su-aasha kale gabadha waxay tidhi aabbuhu hadduu ilmihii ku kooba mas-uuliyaddiisa biil inuu raadiyo uun tarbiyadii carruurtiina uu dayaco dabcan isagoo kaalin ka qaadan kara inuu dayaco ma bannaana waana mas-uuliyadii waajib carruurtu saaran tahay aabbaha hooyadana qaybteedaa saaran aabbahana qaybtiisaa saaran weliba qaybta culusi aabbaha laga rabaayo ilaahay ku yidhi quu anfusakum wa ahliikum naaran naftiinna iyo reerkiinnaba ahalku xaaska iyo carruurtaa ku jira naar ka badbaadiye wixii awooddiisa ka baxsan dabcan tan kalena waa waajib saaran biilka iyo nolosha reerka inuu ka shaqeeyo iyadana waa waajib kaloo saaran labadiiba inuu isu celceliyaa laga rabaa inta karaankiisa ah wixii uu isu celin waayo awooddiisa ka batana ilaahay baaba yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha waxaanse rabaa inaan idhaahdaa reerku waa noloshaasoo labada dhinac in la isla qabto bay ku fiican tahay hooyaduna kaalinteeda ay dadaasho aabbuhuna kaalintiisa dadaalo midkii waxoogay duruuf iyo liicana kan kale uu la garab qabto oo la isxasuusiyey ku baahan tahay waajibaadkana la isxasuusiyo la isku baraarujiyo isagana uu dadaalo wixii awooddiisa ka baxsanna iyaduna inta karaankeeda ay kabitaan ku samayso aabbayowgana oon laga yaaba ereyga igu gaadho waxaan rabaa inaan idhaahdaa ilmaha ka warqabkoodu oo waajib sida biilku u saaran yahay u saaran haddii la dayacaana loogu dambaabayo sida kan loogu dambaabayo ilaahi subxaana wa tacaala allah inoo fududeeya tarbiyada carruurta dabcan noloshiina way adkaatay oo qaali bay noqotay tarbiyadiina way dhib badatay oo fitankii iyo duruufihii magaaladu iyo adduunkan aan joognahay aad bay u adkaadeenoo hadday wakhtiyo qaybo badan hooyada keligeed ku fillayd hadda keligeed kuma fillo way ka tan badan tahay gaar ahaan ilmuhu markay soo yar weynaadaan aabbuhu wakhti inuu geliyaa laga rabaa rag badan oo soomaaliyeedna fadhi ku dirir iyo mahaayada fadhigood baa ka mashquuliyey wakhti badan oo carruurta iyo ka warqabkooda ay gelin lahaayeen su-aasha ugu dambaysaay tilmaanta ay tilmaantay gabadhu asturaaddii ma noqonaysaa san marar badan ku celceliyo asturaadda xijaabka gabdhuhu magac gaara ma laha model iyo design gaaranana ma laha qaab gaaroo loo tolo iyo maro gaara uu ka samaysan yahay ma laha shucuubta iyo muslimiintu qurunta kala duwan iyo shucuubta kala duwan dadka ama wakhti kala duwan ama goob kala duwan joogana isku curfiya dhaqan iyo labis maaha sharcigu saa darteed shuruud buu dejiyey dhar kastoo shuruuddaa buuxiya xijaabkii sharciga ahaa waa yahay midba midkuu buuxinta shuruudda kaga fiican yahay buu ka sii wanaagsan yahay oo haddaad Soomaali nahay Afrikadan galbeed haddaad tagto isku labis ma nihin waqooyiga Afrika haddaad tagtana isku labis ma nihin meelaha dharka raggu xirto dhar dumar xidhaan ka yihiin meelaha qaarkood macawista dumar baa xidha Afrikada ka mida rag ma xidho waa dhar dumar haddaad Asia iyo Pakistan iyo tagto inta aan sheegnay Afrika iyo iyagu isku labis maaha isku curfi iyo labis maaha ma xadaynin sharciguna mana cidhiidhiyin magaca dharka qaabka loo xiranayo desaynka loo tolanayo
ma xadaysna keliya shuruuddii sharciga laga rabay intii la rabay inuu qariyo inuusan ciriiri ku dhagan oo xubnaha jirka bannaanka tilmaamaya ahayn inuusan khafiif waxa ka shaya la arkayo wax maqariyo ah uusan ahayn inuusan ahayn dhar rageed uusan ahayn iyo shuruuddii loo xiray dhar kasta oo laga helo waa xijaab sharci oo asturaada waqtigii nabiga calayhi salaatu wassalaam axaadiidu markay ka sheekeynayaan haweenkii muslimiinta ee masaajka iman jiray go-bay ku dadnaan jireen mutalaficaatin bimuruutihin go-bay ku dadnaan jireen go' weyn bay ku soo dayi jireen annaguna waa soo gaarnay soomaalida dhaqankeedu iyagoo gabdhuhu go' weyn xirtaan marba dhar cusub oo soo galay magaalada iyo noocyadiisa ha kala duwanaadaan go-a laftiisu marba hadba dharkaa socduu midab iyo nooca wiyay ahaan jiray haddana waa un sidii asturaadda intii laga rabay gabadhu hadday asturto dharkii laga rabayna ay ku asturtaay dhisaynkuu dooni ha u tollaado magacuu dooni ha lahaado sharcigu waa xijaab sharciga waay kadib intaa wixii ka dambeeya dhisaynka kala duduwiyo kala qurxi iyo kalarada kala duwiyo waa baab majaalahoo furanoo asalkii sharcigu xijaab astura hadduu noqdo intaa wixii ka dambeeya dadku iyagaa xor oo curfigooda iyo caadadoodi iyo labiskooda wabilaahi towfiiq